sababo aniga oo qabri ku jiro oo karfanan waxaan isku maleeyay in aan geeriyooday waxa aan sugayay xilliga la iga weydiin doono diinteeda iyo nabigayga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkaad naga daawanaysaan waa Tulmooni Production. waxaan idiin wadnaa qisadii dad badan ka cajab gelisay isla markaana xiis aad u badan lahayd oo dad badan naga soo codsadeen inaan soo tabino qaybteedii labaad. waa qisadii la magac baxday qisada wiilkii la ballamay gabadh dhimatay. qaybteeda labaad la soco. qabrigii ayaa ay qodeen aabbihii gabadha, booliskii, wiilkii iyo waardiyihii ayaa goobjoog ahaa. marka ay qabriga qodeen waxa ay arkeen gabadhii oo qabriga ku jirto oo aad moodo in hadda la soo aasay, maba u eka qof 2 sano aasnaa. waxa ay wadatay dharkii uu wiilkii ku tilmaamay. mar alaale markuu aabbaheed arkay waa uu suuxay. hase ahaatee wiilkii ayaa soo qabtay oo qorqoreystay isaga oo leh xabiibtii. booliskii waxa uu u yeeray ambulance oo gabadhii la saaray waxaana la geeyay isbitaalka. qol ayaa la geeyay oo loo diiday in uu wiilku u galo, kaliya waxa loo ogolaaday in ay waalidkeed u geli karaan. muddo isbuuca ayaa ay ku jirtay sida. marka ay waalidkeed u galaan lama aanay hadlaynin, kaliya indhaha ayaa ay ka eegaysay. marka ay war ku celceliyaan hurdo ayay isku tuuraysay si aanan loo weydiinin su'aalo badan. wiilkii ayaa shil gaari soo galay waxaana la keenay isbitaalka. waxa uu la heshiiyey darawalkii ambalaasta si ay warbixin khaldan ugu gudbiyaan kalkaaliyayaasha. waxaana uu ambalaasi u sheegay in uu wiilkan sugayo dhakhtarka subaxnimada. wiilkii waxa uu baadigoob u galay gabadhii isla markaana waa uu soo helay waana uu u tegey. waxa ay ku tiri nolol fiican oo raaxo leh ayaan ku jiray, adiga ayaan kaa joogi waayey. kadib waxaa bilowday sida qisadeedu ay tahay gabadhan. waxa ay tiri waxa ay soo maray maalmo aan xanuunsanaa oo wejigaygu bedelmay, waxna aan quudan waaye isla markaana aan cabbi waaye. waalidkaygu waxa ay yiraahdeen uur ayaa ay leedahay, aniguna waxaan ku dhahay uur ma lihi. waxa ay igu dhaheen dhakhtarka ayaa lagu geenayaa si lagu soo baaro. waxaan ku idhi ma la ii geenayo dhakhtar, haddii anigu igu kalsooneen waan iska tegayaa. walaalahay oo warka maqlayay ayaa garaac igu bilaabay. aabbahay waxa uu dhahayay soo celiyay sharafta qoyska. hooyana waxa ay lahayd gabadhayda. si xun ayaa la ii dilay ilaa aan nafta u yaabo oo farna nuuxin waayo, wadnahayga uu garaacmo, waan mir daboolmay, indhahaygu waa ay taagmeen. hadalka u dambeeyey wax aan maqlay keliya waalidkeeda oo dhagahooda u soo dhoweeyey faruuryaheeda, waxaana ay lahayd ma samayn aabbo. kadib maxaa dhacay? kadibna oo ay dhacday qoyskii waxa uu caqiideeyey in gabadhoodii dhimatay. waa ay dhaqeen oo karfaniyeen, waxa ay geeyeen qabriga oo ay aaseen. saacad kadib ayaan miiraabay oo meerkii ii soo laabtay. sababo aniga oo qabri ku jiro oo karfanan waxaan isku maleeyay in aan geeriyooday waxa aan sugayay xilliga la iga weydiin doono diinteeda iyo nabigayga. kadib waxa ii soo baxday in aan noolahay. dhaqdhaqaaq ayaan korkayga ka maqlayay, waana la hadlay oon ku iri war i badbaadiya. oo ay maqli waayeen. waxa aan go'aansaday inaan qabriga qodo. dhankayga midig ayaan ka qoday. nasiib wanaag dhankaas qabri kama xigin oo iyada ayaa geeska u xigtay. saacad kadib ayaan qabriga ka soo baxay. qoryo iyo caleemo ayaan saaray dhinacii aan ka soo baxay. waddada ayaan soo qaaday. guriga igu dhowaa ayaan ku leexday oon ku iri imartigeliya. waa ay imartigeliyeen oo dhar i siiyeen. kadib markii aan u sheegay in dad rabeen inay i boobaan oo dharka iga dhigteen, waana ay rumaysteen ileen dhaawacyo tiro badan ayaa ku yaalay.
sidii ayaan habeenkaa ku hoyday. Maalinkii ayaan iska shaqaysanayay, habeenkiina qabriga ayaa guri ii ahaa oo aan seexan jiray. Kadibna qisadu ay sii socotaa, qayb saddexaad bay leedahay. maadaama qisadu ay dheer tahay isla markaana dadku in wax tiro badan aysan jecleen, waan soo gagaabinaynaa. xumaan ha u fahminina. aad u mahadsantihiin. fadlan haddii aad qisadan ka heshay, like saar, share gareen. aad ay u mahadsantihiin. soo dhawaada.